miyaad beledkan dhulka kale u badan tahay baydhaba. xeebta jasiira 5 sano ee lasoo dhaafay waxa ay ahayd goob nabdoon. hadda waxa ay ka mid noqotay 7 goobood oo dowladda Soomaaliya ay u qoondaysay in loo soo dalxiis tago. koox dhalinyaro ah oo isa soo abaabulay ayaa fasaxooda toddobaadka halkan ku qaadanaya. miyaad beledkan dhulka kale u badan tahay baydhaba magaalo. waxa ayna si iskood ah u abuurteen qaab ay ku madadaalaan. runtii dalxiiskan wuxuuna hilmaamsiiyey waxaa lagu magacaabo amni darada iyo security-ga iyo nabadgelyo xumada iyo waxaasoo dhan. waxaan tijaabinay inaan leenahay wadan maaragtay lagu dalxiisi karo, lagu damaashaadi karo, qurux badan. waxaan ka baxnay sanduuqii aan ku jirnay ee amni darada iyo mala bixi kara iyo mala socon karada ahayd. liido waa xeeb kale oo ku taalla bartamaha muqdisho. iyana waxa ay martigelisaa dadka gudaha ee aan awoodin in ay safarro dhaadheer galaan, isla markaana doonaya in ay dalxiisaan. sanado yar ka hor cidna kuma aanay dhiiranaynin in ay halkan timaado oo ay u soo tamaslo tagto. xaaladda ammaanka oo soo hagaagaysa ayaa dowladda Soomaaliya ku dhiirigelinaysa in ay dib u soo celiso dalxiiska oo il dhaqaale u noqon kara Soomaaliya. ka sokow madadaalada iyo in loo dabaaldego maalinta dalxiiska adduunka, halkan waxaa la isla jeexjeexayaa caqabadaha mashruucan soo wajahi karaa. runtii caqabado waa fara badan yihiin. amniga ka mid ah, caqabado waxaa ka mid ah dalkii oo weli muxuu ahaa diyaarsaneen. laakiin caqabadahaasoo dhan waxaan uga bixi karnaa oo runtii haddabana saaciday Soomaalidu inay 2 arrin ku wanaagsan yihiin: adkaysiga iyo hal abuurka ganacsiga. waxaan aragnaa Soomaalidii oo qurbaha ka soo noqotay, kuwii gudaha joogay oo runtii hoteello casri ahna sameeyey, goobo badan oo dalxiiska loo tagana diyaariyey. ilaa 100 shirkadood oo maxalli ah oo ka shaqeeya safarka iyo dalxiiska ayaa iska diiwaangeliyey wasaaradda dalxiiska Soomaaliya 2 sano ee lasoo dhaafay oo keliya. balse kaabayaasha oo dagaaladii sokeeye ku burburay awgeed way adag tahay in si dhaqsi ah uu mashruucan ku hirgalo. cali nuur salaad, BBC, Muqdisho.